جماعة وناكسن وعن وناكسن دمانتين جماعة وعن وناكسن دمانتين سودو هذا صدق waxyaaladan ka hadlaynaa oo muhiim ah kow viruska coronavirus labo qofka muslimka ah maxaa waajib ku ah islaamka ah muslimka ah maxaa waajib ku ah maxaase waajib ku ahayn ta saddexaad Soomaaliya 2021 yaan dooran karnaa maxay kula tahay inaanu ka sii hadalno yaan dooran karnaa haddaan shacabka Soomaaliyeed gudaha iyo dibaddaba aanu nahay qofkeen dhihi karnaa waa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya 2021 yaase u qalma adigoona qofna xigsanaynin adigoona qabiil eegaynin adigoona saaxiibnimo eegaynin adigoonan eegaynin xigaal adoona eegaynin adoona seedi eegaynin adigoona walaal eegaynin adigoonan saaxiib eegaynin yaa noqon kara 2021 dalka Soomaaliya yaa hogaamin kara yaa u qalma waa arrin ajaa'ib soma good marka waxaan dhihi lahaa taas inaan ka wada hadalno waayo dhammaanteen ninkii raba inuu si qaas ah ila soo hadlo taleefankaygu waa 780-224-7802 waa qofkii doonaya inuu iska rejistareeyo ii kaadi wax yar hello qofkii doonaya inuu iska rejistareeyo 200 200 qof taleefankaas soo wacaya asaga lagama rabo shahaado lagama rabo wax kasta da'daada waa inay 18 sano ka weyn tahay waa inaad tahay qof Soomaali ah waa inaad tahay qof Soomaalinimada ku dheer tahay waa inaad tahay qof jecel waddanka inuu sidiisa ku soo noqdo because waxa qaadanayso waxa weeyaan decision dalka qofka uu talin lahaa labadaas qolo qof wuxuu ogaanaya dalka Soomaaliya qofka uu talin lahaa baa looga fadhiyaa waxaa lagu qabanayaa Rwanda waxaana casuumay madaxweynaha Rwanda Paul Kagame baan casuumay madaxweynaha u taalaa marka annaguna waxaan sii casuumay waxaad casuumtiin prime ministerka waddanka hadda jooga iyo madaxweynaha waddanka hadda jooga inay la socdaan labadaas boqol oo qof in ay yihiin dad ogaal ah oo ah waxa weeye dalladda midnimada Soomaaliyeed dalladda midnimada Soomaaliyeed DMS dalladda midnimada Soomaaliyeed looga leedahay magaciisa warkaasa waa wax registered ah European American everywhere Arab wax kasta ka registeraysan labadaas boqol oo qof oo Soomaalida ah iyo ka go'da Soomaaliya waxay noqon lahayd halkaas ka go'da madaxweynaha iyo prime minister hadda jooga waxay xaq u leeyihiin nasiibkooda noqday in ay ka mid noqdaan labadaas boqol oo qof laakiin ma aha inay ku soo noqonayaan ama madaxweyne noqonayaan ama prime minister noqonayaan ma aha way soo sharxi karaan xisbigooda soo sharxi karaan qof kasta xisbi uu leeyahay laakiin labadaas boqol oo qof madaxweynena ma noqon karaan prime minister ma noqon karaan wasiir ma noqon karaan hataa DJ ma noqon karaan war wax ay noqon karaan ma leh labadaas boqol oo qof waxay ka go'an tahay
Soomaaliya sida ay lugahooda ugu istaagi lahayd ay ugu go'an tahay. That's it. Inay u taliyaan Soomaaliya dhibaatada ay ka saaraan maanta ay ku jirto. Wadanka Soomaaliya la yiraahdo in qashinka banaanka yaala ay aruuriyaan 200 qof sidii ay ku aruurin lahaayeen falankooda inay galaan. Malaayigan banaanka iska yaala ee la kulumeysan la yahay in la kulumeysto oo dadka la baro. beerahan la falan la yahay 200 qof inay farta ugu fiiqaan. madaxweynaha iyo prime ministerka la rabo inay 200 qof ay soo doortaan. hebel baa wata iyo khadar baa laga wataa iyo Abu Dhabi waa wata waxaas inaan soo afjarno. dowlad darisa inaas anaga noo talanin. marka alxamdulillah rasuulillah ilaahay waxaan ka baryayaa inta xanuunsan ee madaxa ka xanuunsan waliba ee xaasidka ah ee ixdiga iyo qoronnimada uurka ugu jirto ilaahay waxaan ka baryayaa kuwaas inuu ilaahay caafimaad siiyo. qofka walaalka lama dilo, qofka walaalka lama baabi'iyo, qofka ixdiga qaba xaasidnimada qaba cudurka qaba waa loo duceeyaa. midda labaad oo ka hadlayna waxa weeye haddaan dadka North America joogo bilisxaanak wadanka adduunka waxaa soo baxay cudur la yiraahdo coronavirus. please ubadkiina iyo idinkaba is ilaaliya. ilaahay baa ilaaliska leh laakiin ilaahay wuxuu yiri hal la is ilaaliyo. qofka hadduuna subaxii shaqo tagin dhaqaale ma soo galay. ilaahay waa awoodaa inuu adoo jiifo wax ku siiyo. wuxuu siin jiray nabi ciise hooyadii maryama oo ahayd wixii winterka baxana samarka la siin jiray, wixii samarka baxana winterka la siin jiray. anagu ma nihin taas, ilaahay baa doortay. marka ilaahay wax kasta waa awoodaa. ciisana wiilkeeda ciise nabi ciisana qof dhintay buu soo nooleysiinay. marka ilaahay haddaa doonaysa inaad aragto waan aragto kuma laabna. maalin kasta alla wuxuu noo sheegay waa aragnaa. marka intaan dib u fikirno waxaan leenahay waxa inagu waaninayaa dadka North America jooga, dadka Europe jooga, dadka Australia jooga, faraha ha la iska dhaqo 24/7. faraha ha la iska dhaqo. ilmaha ha la ilaaliyo. ilmaha markay iskoolka yimaadaan asalootid ka dhig. dharkiisa dhaq, soo dhawo dharkiisa dhaq, gacmaha ka dhaq, musqusha geli, u qabee. haddii in case biyo kulul ku shub, biyo kulul oo dirnimada cunuga 15 minutes ku jiro intuusan gurigaas aadan cunto iyo waxba iyo hormar aan la gaarin. waa in la is ilaaliyo waayo. ilaalintu waa number 1. caafimaadka ayaa wax kasta ka horeeya. qof hadduusan caafimaad qabin alla maba caabudi karaba. waa runtaa oo ilaahay waa caabudaysaa adoo caafimaad qabiya adoon qabin. laakiin dee waxaa wanaagsan qofka aniga Ibrahim ahaan personal markaan iska hadlo markaan aadayo masaajidka aad baan u labistaa. dharkayga dharka ugu qurux badan baa qaataa. barafunka ugu qurux wanaagsan baan isku buufiyaa. oo marka agteeda lasoo maraayo waxaa la dhahaa wow. dad baa ugu dhahan jimco kasta iyo maal kasta oo masaajid aadaya jimco kaliya maaha anytime cisho maqrib niyo xaflad ma u socotaa may masaajidka u socdaa waa yiraahdaa. marka meesha ilaahay lagu baryayo waa inaad isku dhistaa. maaha aroosyada iyo wax qurunkaaba waa isku dhisaysaa. meesha alla lagu baryayo waa inaad isku dhistaa. masaajidka waa inaad isku dhistaa qurux badnaataa. marka hadalkii waxaan ka waday waxaas ma samayn kartid haddaad xanuunsan tahay. ilaahay waad baryaysaa qoriga hoos adoo jiifaad tukanaysaa. laakiin markasta ilaahay waxaa laga baryaa caafimaad waana la ilaaliyaa. marka Soomaaliya dib aan iskugu noqono dhammaan bilisxaanak qofku dhaafo YouTube-ka ka fiirsado everything. subscribe samee, suuqa kor u taag, waa iska garan kartaa. marka insha Allah barkadi waa wada xiriir doonaa dhammaanteen. inta kale dib baan isu sheegi doonaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. I love you all of you guys.